Maamulka deegaanka Daarusalaam iyo madaxa qaar ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa codsaday in dadka barakacayaasha ah ay waxyeeleeyeen abaaraha in gurmad degdeg ah oo mid caafimaad iyo mid cunno ah sidoo kale hoy u yagleelid ah in loo sameeyo oo dhammaan hay-adaha ay qusayso shaqadan ay u soo jeestaan si loo samata bixiyo kumanaan muwaadiniin oo Soomaali ah. Muumin Maxamed Cali oo ku nool deegaanka Daarusalaam duleedkeeda qaxooti ku yaala marka dad masaakiin oo ka soo kala qaxay Qoryoole iyo Jeero iyo Furuqley meelahaas ay ka soo qaxeen dadkaas oo ahaa xoolo dhaqato iyo beeraley oo maanta biilaan iyo awaar baahan ku dhaceen sidaas darteed ay nagu soo gaareen anaguna aan nahay deegaanka Daarusalaam gabdhaha Soomaaliyeed oo ku nool Daarusalaam waxaan ugu soo gurmanay muslimnimo iyo ehelnimo walaaltinimada aan ugu soo gurmanay wixii tabarteena akaraankayna waa ka qayb qaadanay aan u heli karno waa u keenay hadda caalamka iyo dawladda Soomaaliya iyo dadka caalamka ku nool iyo dadka Soomaaliyeed oo Muqdisho ku nool oo ganacsatada ah waxa laga codsanay dadkan walaalahooda oo meeshan yaala inay u soo gurmadaan ay himsay ifraahan buushay xaga ka soo barakacda hooyo Qoryoole baadiye xoolo dhaqata ahayd mise looda noo dhunti looda dhimati abaarana qabade mise loo ayaad lahayd abaarana qabade beerooda beero biidhoobiya waayne balka waa base kila bihoob la abuurin waa dhaqata iyo beeraley xoolahii waa naga dhamaadeen beerahii waa naga baseen waa soo barakacni mise qof ayaa tiin qoyskiin waa badannahay ilaaha intana keene Daarusalaam ilaahana keene inta joognaa dadka waa dhamaaday xoolo waa dhamaadeen balka waa base ilaaha intana keene Qoryoole xoolo dhaqataada ahayd mise beeraley waaye beeraleyna waa nahay xoolo dhaqatana waa nahay biyo waa luway loo os unaynan ma jooga kartaa waa dhamaatay abaara nagashe inta ilaahayna keene waxaan joognaa duleedka deegaanka Daarusalaam waxaan soo gaaray barakacayaal aad iyo aad u tiro badan oo ilaa gaarayo 2500 oo qaxooti oo ka soo kala qaxay maxaa la dhahaa Owdheegle iyo meelo badan biyo baxdadii dad badan naga soo gaaray sidaad aragtaan waxa waaye maalinta ka dambayso waxa imaanayso dad tiro badan ay imaanayaan dawladda Soomaaliya iyo hay'adaha waxaan ka codsanaynaa inay iyo maamulka gobolka Banaadir waxaan ka codsanaynaa inay gargaar degdeg ah la soo gaaraan oo dadkan masaakiinta ah oo soo qaxay